Sida dhamaantiin waxaan xulan waxaan doonayaa ka hadlo qaybta labaad waddanka Azerbaijan ee dhawaan boqortooyada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaasoo noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee boqortooyada waddankaas ee Soomaaliya. Runtii waxaa la cajiibkan leeyahay waxaa ka mid ahaa markii uu hadlayay madaxweynaha Azerbaijan wuxuu sheegay inay jiraan arday Soomaali oo waddankaas joogta. Runtii waxay u noqotay aniga la yaab iyo amakaag waayo runtii Azerbaijan kuma ogeyn Soomaali kaliya waxaan ku ogaa asxaab Nigerian ah nin iyo naag ku ogaa meesha joogan ku ogaa laakiin kuma ogeyn asxaab Soomaali inay joogaan magaranaysa Azerbaijan. Marka waxaan doonayaa in ka sheekeeyo oo aan ka hadlo waxyaalaha muhiimada Soomaaliya u leedahay waddankan iyo sida markaas looga faa'iideysan karo. Haddii aanu ka faa'iideysano waa okay, haddii aanu ka faa'iideysan weynana wadada Turkiga maray ayuu marayaa. Marka sida dhamaantiin waxaan ka codsanayaa marka hore video meel dheer gaarsiiya like taabta others share-ka sida dhamaantiin waxaan xulan waddankan wuxuu soo maray dhibaatooyin badan dagaalo sokeeye dhibaato badan. 90kii markay ahayd ayaa waxa gobolka qabsaday waddanka Armenia wuxuu kaga qabsaday laakiin ayaan dhawaato 2 sano ka hor ayay magaranaysa xog ku soo cesheen. Marka waddanka runtii waa waddan dhibaatooyin soo maray taariikh adag leh laakiin ka soo gudbay. Marka Soomaaliya runtii haddii waddanka ay la saaxiibto way ka faa'iideysan kartaa. Madaxweynaha Soomaaliya hadda markuu waddanka tagay waa la casuumay meelaha waxa la geeyay militariga saan daawanayay meelaha ciidanka la geeyay. Marka asxaabtaas waxay tahay waddankaas si loo faa'iideysan karo. Horta wax ka mid ah waddankaas hadday bixiyaan scholarship ama waxbarasho free ay keenaan inaysan dhicin sidii waagii Turkiga dhacday inaan la musuqmaasuqin inaan meesha loo dirin dad magaranaysa tahriib ah dad iska yaacaya meesha loo dirin in la diro dad diyaar u ah inay wax bartaan. Taas waxay keenaysaa in magaranaysa lagu aamino laakiin markii meesha loo diro dad iska yaacaya tahriib ah waxay imaanaysaa in magaranaysa laga aamin baxo. Marka Soomaaliya madaxweynuhu runtii markuu hadlayay madaxweynaha Azerbaijan wuxuu sheegay inay jiraan arday Soomaaliyeed oo hadda dhigata diyaarna u yihiin inay magaranaysa in badan kale ay siiyaan scholarship. Marka haddii scholarship yimaado oo dadka la siiyo waxaa wanaagsan inaan lagu ciyaarin inaan la musuqmaasuqin inaan qabiil loo qaybin in meesha loo diro dad magaranaysa diyaar u ah inay wax bartaan dad aan tahriib iyo waxaas ku jirin. Midda kale haddii waddanka ay keenaan mashaariic laga faa'iideysto inaan la siyaasadeyn inaan la qabiileyn in magaranaysa gobol kasta meel kasta ay gaadho khaasatan dadka ka shaqeynaya mashaariicda in loo xulo dad aqoon leh oo diyaarsan shaqadaas inay qabtaan. Haddii la iska xulo dadka oo musuqmaasuq lagu xulo oo wax lagu xulo oo la wareegay hebel meesha lagu geeyo waxay imaanaysaa in mashaariic magac ay istaagto. Marka haddii mashaariic waddanka ay keenaan waa in laga faa'iideystaa. Marka mid kale waxay tahay Turkiga hadda kor wax ka dhacay in dad fara badan la siiyay scholarship la siiyay meesha ay ka yaaceen ka carareen. Marka hadda waxaa fiican in magaranaysa cashar aan ka barano waddankan laga faa'iideysto. Madaxweynaha wuxuu u baaqayaa in waddankan soo dhaweeyo safaaradooda soo dhaweeyo safaaradda xagga la geeyo xiriirka la furo fiisooyinka la fududeeyo si uu caadi noqdo insha Allah.